توان هذه أدمن روحهم هايين تي أن ذلك كلا عرري أيو موسيقى لي وحنا إلى ما ننتي أنو دورشة النور دماتي أنو تيو لسكر الله أنو أنو إندورس كلامي دورشة دي يوم الحين بدي موسى أنو بريس بدنا صارت هاي وأنو حسبهان بيرستيش كانوا هلا أنا كوقنا سنين عندنا وحنو سيناي مدان تسين أول جزء سينجني قرن كانوا سيناي إلا ما أنت أنا وحنا كشقينا حسبي هذا ونهاية عيد إن أنو ما دام أي دلدلع وين نويمي إن أنو قعمت سينا مدحوينها dadka isku keeno dad badan waxay u qaateen markaa qaana waxay yiraahdeen Faysal wala shuraake qaana waxay yiraahdeen wala taliye ayay naga dhigeen markaa maanta dalkeena waxa ku socota dibadda arrimo badan baa inagu socda dawladda magaalada Soomaaliya markaa ka talisa Muqdisho xaafad kamid ah waxay ka dhigtay priority-geeda si Soomaaliland adduunka uga soo xiriir lahaayeen dagaal aan loo eegin oo tuulada ilaa tuhraq ayaynu galay shabada ay nagu samaysmay waxa ka socda gobolkii isbedel xoog leh oo ay rool weyn ka ciyaarayaan reer Soomaaliya oo aan hubo in ajandadooda ku jiro si Soomaaliland loo undermine garan lahaa arrimahaas oo dhan anagu eegina waxaan xooga saarnay inaynu aynu dadkeena midayno madaxweynaha tala ka siino laba arrimood baan aad xoog u siino waxay arinta khaatumo iyo waxay arinta magaalada dagaalka Elaf Weyn labadaas aanu xoog aan saarnay in gacan ka geysano labadii waxa nasiib daraa inay aanay dhamaanin oo midna khaatumo arinteeda oo dhamaan oo professor Ali ku dibadda ku maqayay isagoo wax tirsanaya xaqana oo caara ka samaysnay ayaa dhacday markaa waxaanu rajaynaynay inaanu arintan doorashooyinka iyo waqtiga taagan yahay inaanu dhaqaajino oo qabiilka laga baxo institutionska dib u abuurnaan ka shaqeynay taas waxay keentay inaan xoog saarno xusbiga kale mucaaradka oo aad iyo aad ugu mahadnaqino inay naga ogolaadeen inay ogolaadaan inay commission uu shaqadiisa wato maadaama 2019 uu waqtigooda ka dhacayo inay haddii naga gaarsiiyaan dawladaha hoose inoo sameeyaan ka bacdina qodobkoodii labaad hal kordhiyo oo labaha lagu daro oo anagu hore anaga iyo kulmiye aan 2008 soo saarnay in lagu daro taasaan ku dhexdhexaadinay waxaan nasiib daraa inuu madaxweynuhu uu labadii naga diiday halkaas horta wadaarada ku joogsadeen anu markaa aanu aragnay inuu madaxweynuhu aanu tala qaadanayn oo saddex xisbi markaa aan u tagnay la qadaynay la qaylay wax Allah wixii aanu u sheegnay midna aanu ka bixin waxaanu aragnay aanu soo jeedinay oo runtiin ah haddii shaqeyn waaydan democratic institutionska aanu sameynay oo asxaabtii shaqeyn weydo doorasho dhici weydo in laga maarmaan noqon doonto in shir wada qaran wada tashi qaran in la sameeyo oo markaa dalkani badbaadiyo ayaa aan doonaynay maantana waa ogtihiin dalkeena halku marayo gudaheena waa arkaan waxaa hoos u dhacay magaalada amnigii baabuurtii baa la dhacayaa dhalinyartii baa wax kufsanayso baabuurta wadooyinka isku taagiso booliiskeeni oo lacag qaadan magaalada saay aanay tababarna lahayn magaalada milyan iyo badh baa ku nool iyo booliiskeena intuu leeyahay xirfadiisu isma laha hawlo badan baa inoo yaala maanta waa aragteen haddaad turki wasaaradda tagtaan meesha turkiga haddaad tagtaan safaaradda dadkeenii markaynu dawo u weynay caafimaad u weynay kuwii heliya inay dibadda u tagaanna fiisa ma haystaan baasaboor ma haystaan halkaasay isdul saaran yihiin waad ogtihiin dhibaatadaasoo miirnana waxaan dana jecleen inaan gudaha midayno laakiin waxay u egtay inaanu muuse u diyaarheen uu ka jecel yahay garramta in la garramo uu jecel yahay in la liyooyootamo oo dhaqan ku soo noolaa 27 sano ahaa inuu hadda go'aan qof mucaarid u jiray ayuu ahaa markaanu shareecta khudbadiisii waxaan leenahay wax kale ma aha dadku si kala fogeeyay waan ka xumahay inuu
shan iyo afartan minad hadlay oo shan iyo afartankaa minad wax ma xura aanu ku hadal kii anagu aan u ogolaanay inuu madaxweyne yahay uu noogu yeedhay uu nagu casuumay aniga wadane inuu maanta isagii uu kuweshan maalgeliyo uu yidhaaho maxkamad hala tago waan aad baan uga xunnahay legitimacygiisii uu shaki geliyo taasi waxay arkaysaa in adduunku hadduu geliyo maalintuu dhaweysto oo u dambeysay ninkii ka socday safaaradda Canada su-aashaasi uu weydiiyey wuxuu yidhi waxaa leeyahay waa illegitimate madaxnimada magaalada Muuse waxaan waa been 80 buu ku helay wana wada endorse kaleena waa dacay isagiiba hadda bilaa sharci yahay keen waa ka xumahay ilaa waxaan leenahay si Soomaaliya de Muuse waa kaas banleen Muuse waa ka fadhiyey daahiyale waxaan hala kala diro oo kala diray waxaan yidhi hala baarlamaanka la soo horeysay doorashadiisa wuu naga ogolaaday waxaanu si loo qaybiyo kuraasida saddexda xisbiyo isaaq wuxuu ka socday kulmiyuu ka socday si ay kahayn markaan qaybinay 2 marka madaxweynahani uma diyaar ahaa inuu wax kelmad wax qor oo dalka yaala oo mushkilada inuu xaliyo nin u diyaar ma aha isaga madaxweyne haddaan isagu xalinin niman dadkan la saaraya leeyahay ka taga meesha waqti uu dhamaaday ayaa xalinay oo iska sii fadhiya isaga xilku saaraya xilkiisa haduu ka soo bixi waayana sharci ahaanna waa la maraya impeachment shirahana shir qaran qaban ka tashan ku eegnayno haddaanu aragno inaanu lahayn karti oo hogaanimo oo Soomaaliland halka maraysa uu ka saari karo haddaanu aragno ma ogolaan inuu dalkeega burburiyo Muuse waanu ka horteginaa waanu ka tashanina xaqna waxaanu leenahay inaanu waddankeega badbaadino shirweyne qaruux noqonaya waxa laga xisaabtamaya 27 yearskii maxaa la qabtay maxaa inaga xumaaday maxaa inoo wanaagsanaaday maxaa ina hor yaala challenge maxaan opportunities haysanaa waxaa la qiimeynayaa dawladda maanta taagan waxaa la qiimeynayaa madaxnimada magaalada Muuse waxaa la qiimeynayaa sharciga ay ku joogaan baarlamaanku inta ma kala qaybiyo hadda la arko sharcigu oo arkay inuu bilaa ay ku jiraan bilaa sharci ku joogaan magaalada xildhibaanadu iyo dawladaha hoose oo wax sharci oo oranaya 15 sano sii joogay aanu jirin tala ka soo baxaysa maxkamadda la tegaya waa an constitution ay joogaan Muuse haddaan aragno xilkiis ka soo bixin waa laga tashanaya amba markaa shirbeelada lagu doorto amba impeachment lagu sameeyay noo fadhiyo maayo inuu waddanka fadhiyo nin aan wadi karayn oo nagu collapse karo yeelimayno gudoomiye magacaygu waa Cabdiraxmaan Fataasi waxaan ka socdaa telefishinka Reer madaxweynuhu hadal shirkiisa jiray shalay waxa ku sheegay in haddii doorashooyinka wakiilada iyo deegaanka waqtigooda ku qabsoomi waayaan arrintaasi ay mas'uuliyadeeda qaadeen xisbiyada mucaaradka oo qaar kamid ah u sheegay adigu arrintaas kula muuqato mas'uuliyadda isaga qaaday anaga xilnimo saarna hadduu qaban waayo oo waqtigooda qaban waayo baarlamaankaasna fadhiyi maayo isagana hoggaankiisa waa ka tashanayna waxa cadaanaysa inaanu capacity oo dalku xukumaan lahayn hadday taasi cadaato qofku waxa weeye wad aragtaan dawladdiisa waa aragtaan 9 bilood waxay qabatay ma jirto waa aragtaa khaarijyadeeni waan ka fadhana waa aragtaa informationkeedii waa naga adkaaday meel quro inoo fayow qabtaa ma jirto meel waa aragtaa barigii sanaag waa galbaday wuxuu president Carter wuxuu doorashadii ku waayay who lost Iran-kii ayuu tula qabsaday shaha laga saayo ku waayay doorashadii yaa lumiyay maanta dalkeeni sanaagti bari yaa lumiyay maanta dagaal in galiyo ciidamadeyni intay tuulo fadhiyaan cadceeda fadhiyaan waan taaladeynaya ayaa kolba inta la isku soo urursado inta la isku soo urursay aan sugina oo maalin kasta inta la soo weeraro ayaanu daawanaa military alba sameynaya inta military ahaan kale military ma ahay waninka garan waaye war ciidankaagan maalin kasta lagu soo duuliyo inta lagu soo duulin is abaabuliyaan adoo aataaga qaado kala eri ee suuga halka dhaafin adduunkii baa adduunka waan ka xiranahay Muuse waxa adduunka halka ku qoray inuu warlord yahay nin dagaalyahan yahay uu inaga xiray sidaa imaka anaga midjidka nugu yahay nala hadli kar laayo isfahm leenahay adduunkiin lama fahmiyo de markaan in aan ummadiisi fahmi kareen oo adduunkii fahmi kareen oo keligii ila ana wax ganay aniga de muu ina wadi karaya waxaan leenahay aqliga keen intaas sanadood mucaarad ahayd 27 sano mucaarad buu ahaa yurtaas aanu ka haynay
haddii ilaahay nasiibkii siiyey oon ogolaanay waa inuu waddankan u badbaadiyaa oon la badbaadinaayo oonu ka baxnaa muranka dhexdeena oon wadatashi sameyno ummadda u madeeyaa ayaa weeye intaanu ka rabna waa intaan inta kale waxa weeye war way cadow badanahe war dadkan uu dildilaace war annagaa qabanna waddani war annagaa qabanna caare war aduu noo qabsoom war aduu noo qabsoom madaxweyne waanu ku taageerno oon mucaarada hoose iska dayno oo in inagu ukubaari ku noqno gudaheena inteernani aan joojino intaanu ka rabnaa waa intaa reer somaliland reer somaliland waa intaan mala ficiltamino ficiltamo fiicna waxa weeye inuu hogaamiyaa nala tashadaa anaguna wixii aan ra'yahayna u dhiibna laakiin hadduu doortay inuu 45 milyan uu gar naqsado dee waxaan arkaa inay tahay hogaannimad maaha taasna leadershipkii aanu ka doonaynay maaha taa maaha tuu doonayey inuu madaxnimada muxuu doonayey haddaanu quality leadership lahayn muxuu doonayey muu kingi meekarkiisa ku joogo kolba nin uu saari jiray that was good taas ku fiicna inuu kolba reerkooda yidhaha halkaa ku shuba inuu maanta isagii uu isku meeraysto dee kamaanu filin marka waxaan leenahay miyirka keen arrintan ogolow doorashadu hay noo socoto nimankan baarlamaanka waa sharci kuma fadhiyaan ha ka baxaan meesha dowladda hoose waad aragtaa miyiraa la kala samaystay ha ka baxaan meesha aynu adyar intii doorashada gelayso laba meeyaroo fiican ku-xige aan samaystano isla ogol lahay oo magaalada noo qurxiya anu saasaan leh anigu waan daafacay isaa nooga sheekeeyey markaan saddexdan ugu tagnay inuu si cadaalad u qabtay gobol loo siiyey anaa daafacayay ninka hadduu anagii daamur meel naga wada dhigay de waa nasiib daro daamur baa ninkii ka hadlay anugu kamaanu hadal taasi waxay kutusisaa inaan madaxweynahani uu u yahay diyaar u yahay muran anugu kula murmi maayo maanta ugu dambaysan badan kula murmo action baan qaadaya waan kaa badbaadinaya dalka haddaan ku arkay inaad wadayn waan kaa badbaadinaya waa xili saaran waa tan u imi intaasoo guri baad dhisata adugu inta jooga anugu halkaa gurigan sanadkaa dalka dhisa dhul igu bedel inta guryaa dhisnaysaanu Soomaaliya baan daafacay oon waqtigiisa oo carruurtay ku dhintay marka kaa yeeli maayo waxaan doonaa yeelaya I have to stop you sen aabbahay u joojiya dagaalka sokeeya adna waa ku joojinaya